السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما قيرتا waxaan update idinka siin doonaa challenge-igu adkaa ee aan bilaabay saa ogtihiin bishan dhamaadkeeda ama bishii la soo dhaafay dhamaadkeeda waxaan soo shaaciyay challenge aan bilaabi doono awal hore challenge waa sameeyay jiray laakiin wuxuu ahaan jiray challenge aan igara laakiin challenge waxaa ka dhigay public si adduunka oo dhan oo ii daawado failure-keyga iyo success-keyga labadaba meeltii soo baxda hadaba waxaan rabaa video in update idinka siiyo challenge-ga siduu socdaa sidoo kale maxaa aan faa'iidooyin ama success ah helay maxaa failure ah soo binaadina ahay wax walbo ma ii hagaagi doonaan wax walbo macnaha sida loo talgal ma noqon doonaan ileen mar walba waxa ka awood badan qadarta ka koraysa ka awood badan soo waxaan rabaa inaan breakdown ku sameeyo maxaa ii hagaagay maxaa ku fail garoobay si adinkana 10 ugu qaadataan oo bal aad noloshiini wixii markaas aad ku daba kartaan ninkiina aad ku dabaqdaan tobankii maalmood ee barnaamijku u socday barnaamijku waxaan update habeen walba isugu siinaa ama maalin kasta barta Discord oo aan ku soo gudbino updateska qof walba halkaas ayuu soo geliyaa updateska runtii keligeyga ma team badan ee la shaqeeyo gabdho u wiilal isugu jira oo runtii maalin walba soo dhigo waxbarashada dhanka shaqada sidoo kale dhanka fitnesska oo dhamaantooda ay la soo wadaagaan progresskooda iyo challenge-gooda xaqiiqatan aad iyo aad ay u tahay dhiirigelin in aad haysato team adiga kugu maskax ah oo rabaan meesha aarti inay gaaraan Discord waxaa ku soo biiray in ka badan 600 qof oo challenge inay qayb qaataan rabaan still issues waxaa jiro dad ku soo biiray channelka oo soo qoray hadaf hebel leeyahay laakiin still aysan bilaabin qof walba way ku dhici doontaa adigu ku dhici doontaa anigu way u dhici doontaa qof kasta ku dhici doontaa waqti ay wali haysataa bisha wali hataa waxay baraysaa bilow qaybteeda hore la maraa wali still waxaa haysataa in aad dib isu qabato oo aad challenge dib ugu soo biirto aad nafsada ka adkaato aad macnaha inta 3 bil ka dhiman sanadka ay noqoto 3 bil ugu fiican waqtigaaga dhan walba ugu faa'iideysan kartaa hadaa rabto businesska ugu faa'iideysan kartaa hadaa rabto fitness ugu faa'iideysan kartaa sida aniga oo kale sidoo kale waxa ugu faa'iideysan kartaa waxbarashada hadaa rabto in luqad hebel aad barato ama in aad xirfad hebel aad barato intaas oo dhan way ka saacideysaa marka aqoonta sidoo kale waxaan xusuusinaa oo channelka ku jirto aan wali bilaabin inay bilaabaan aqoonta wali isku dayeen inay bal fadhi ka kacaan ee bal waqtigooda iyo dib haween u sameeyaan soo aan soo laabto marka programka ama videoga muhiimadiisa koowaad maxaan ku guuleystay 10kii maalin soo dhaafay maxaas ii hagaagi waayay oo aan rabaa in isbedel ku sameeyo waxyaalo aan ku guuleysan waayay jirto oo aan rabaa in hadda aan dib u sii fiiriyo probably videodan oo kale every week waa soo duubi doonaa oo aan update idinka siinaa si anigana progresskeyga aan u ogaado sidoo kale maxaa iga xun maxaa iga fiican ama maxaa u baahan inaan dib u bedelona aan ka hadli doono runtii videoga maanta waa ku soo celcelinayo the same scenario laakiin aan hore u sii guda galo okay videoga marka laba qayb u kala qaybinaa waxaan u kala qaybin doonaa maxaa ii hagaagay dhanka businesska iyo fitnesska iyo sidoo kale maxaa hagaagi waayo oo failure because mar walba meesha in soo istaaga ma dhahay waxaas guul ka gaaray waa in la wadaagaa waxyaalaha aan ku guuleysan waa si adinkana 10 idin kula noqoto aad wax uga baxsataan at least hadii aad challenge ku soo biireysaan ama aad sameynayso challenge adiga ku gaara waxaan ka bilaabi doonaa qaybta winniska xoor nafsadan aan xoor ka farxinaa maxaa ii hagaagay so number 1 horta goalkeyga koowaad wuxuu ahaa in fitness levelkeyga uu noqdo mid aad iyo aad u sareeyo cabirid kala ma galin laakiin maxaa hadda stepki iyo progress intuu socdo maxaa sameeyay so waxaan horta goal ahaan u degsaday in maalin walba 10 step aan socdo maalin kasta oo dhalato oo dhamaato in 10 step laga rabo hadafkaas alxamdulillah waa ku taagnaa 10kii maalin la soo dhaafay 10 step ha ka badnaata maahane wax ka yar ma sameynaynin runtii masha Allah stepkaas waa ku guuleystay aniga iyo sidoo kale aqaar kale oo magaaladaas la joogno ayaa ayagana challenges ku jiro challenge noocaas oo kale ma exactly kan ayaa ayagana isla socona oo 10 steps marka way fiican tahay in qof isla sameeysan hesho runtii aad ka support gareynaysa taas marka waxaan ka wadaa in miisaankeyga oo u yaraan 83.7 ahaa marka aan challenge bilaabayay hadda waxaan maraa 82 ayaa maraa oo buuro ah which means 1.7 kg ayaa iga dhacday 10kii maalin la soo dhaaf waa slow laakiin progresska mar walba progresska perfection ku ka fiican yahay taas xisaabta ku darsada soo kale waxa aad iyo aad u hidgeliyay gymka every day gymka waxa aadayay hal maalin horta ma baajinin awal waxa laga yaabaa weekly mar inaa baajiyo ama roobada oo something like that ayadoo roobka da'ayo oo xaalada cimilada ay qabow yihiin
haddana marnaba ma istaagin, waa aadi jiray. hadda haweenada qaar oo kale hadda video da la wadaago roob fiican da-ay, marka waa aadi jiray. marka awal hore gymka waxaan sameyn jiray sidoo kalena flexible ahaa. sometimes 1 hour aan joogi jiray, sometimes 45 minutes, sometimes 2 hours, hadba sida maalinkaas moodkeyga uu yahay ayay ku xirneyd. laakiin hadda waxaa goolka u ahaa in 2 exercises oo kala duwan aan maalinka soo sameeyo, which means at least hal saac ay baray qaadanaysaa in aad gymka soo joogo. inay ka badnaato mahane ma ka yaraa karto, which means hal saac ay bar ilaa 2 saac oo kaamil ah ayaan gymka soo qaadanayay oo aan hit gareynayay, which is very nice. isbedel xoogan oo jirkeyga uu ku sameeyey, which is super nice. taas wuxuu ahaa qaybta fitnessku ahaa. aan usoo laabtay qaybta businesska ama qaybta dugsiye aan businesska ugu weyn dugsiye, as you know. marka intaan u galin dugsiye, sidoo kale dietka sida waa sigan dietkeyga guud waa alxamdulilah. cuntadeeda waxay waa saxan yihiin ilaa xad. waxaa aad ugu haray saacadooyin kuu sheegay oo aad aan u isticmaali jiray waxyaalaha macmacaanka ah. aad aan u isticmaali jiray because waa ku haystay, to be honest. aad qof macmacaan jecleen ma jiro, laakiin aadaan u jeclaa. sidoo kale waxaan aad u isticmaali jiray waxyaalaha oo soodhada ah ama ashtada leh sida Coca-Cola ama waxyaalaha lamidka ah, aadaan u isticmaali jiray. alxamdulillah 10 maalin la soo dhaafay hal xab ma cabin wax soodho ku saabsan. biyaha caadiga ah ayaan isticmaalayay, almost waa ogooyay, ayadan improvement fiican aan ka sameeyay dhankaas. sidoo kale failure waa jira, waa idin wadaagi doonaa. dhanka businesska aan usoo laabta ayadana runtii waxaa meel fiican ii marayo update gareynta websiteka dugsiye.com because websiteka waxaa dhawaan bilaaban doona barnaamijka mentorship qaybtiisa afraada bilaaban doonto oo insha Allah dhawaan bilaaban doonto. websiteka new waxaan u jiheynay oo weji cusub ayaan u jiheynay, wejigii hore aanan ahayn. so waa soo shaaci doona video gaara kasoo sameyn doona wejigaas cusub muxuu yahay, because isbedel xoogan ku sameynay. and honestly sida koorsooyinka loo qaadanayay, sida koorsooyinka ay u soconayeen, programmada runtii aad iyo aad isbedel ugu sameynay. jiha cusub adiga completely jiha cusub aadnay. so arrinkaas marka waxaan kusoo shaaci doonaa ayadana channelka update xoogan ka jiri doona dhankaas marka aan kasoo dhamaado. probably in this week aan umaleyn doonaa in idin la soo wadaagi doona updatekaas. update qaar oo insha Allah very useful ahna way kamid noqon doonaan oo adinka aad qayb ka qaadan doontaan. so marka dhanka businesska marka aan usoo laabto, marka especially horta wax course amaan duwin mentorshipka inaan dhamaystira ayay ballanka ahayd ama qorshaha kamid ah. laakiin waxaan u dhigay 15 wixii ka dambeeya markii barnaamijka mentorshipka aan ku dhaqan, because hadda waxaan ka shaqeynayaa update gareynta websiteka, sidoo kale jihada cusub oo hadda idin la wadaagay. si guud ay wax ku socdaan, si oo nadiif wax ku socdaan. failures jira marka inta 10 maalin u socday failures ayaa isoo wajahay. waxyaala aan ku guuldareystay macnaha oo aan sameey waaya kamid ah. aan u gudbo marka sectionka labaad ama qaybta labaad ee failure. intaas waxay ahaayeen waxyaalihii aan ku guuleystay. alxamdulillah isbedel xoogan waa sameeyay. adinkana waxaan rajeynayaa wixii isbedelo kugu dhacay bal inta commentiga hoose aan ku ogaano wixii aad haddii challenge-ga ka mid tahay. sidoo kale weli waqti haysataa, bish maysan dhamaanin, 2 bil iyo jajabaa kuu dhiman, iyo weliba 2 bil iyo 20 maalin, almost waa 8 maalin waqtiga weli waa haysataa. haddaadan weli challenge kusoo biir. qasab maa inaad discord imaadid, aad naftakaaga challenge gooni sameyso, nafsadaada ugu faa'iiday 3 bil ha kaaga mahad celiso. so waxyaalaha failure-ka ah marka maxaa waaye oo aan ku guuleysan waayey inta ay socotay 10 maalin oo challenge uu socday. kow horta waxaa issue xoogan iga haystaa oo aan xal fiican u heli doonaa hurdada. so haddaa ogtihiin haddii hurdadaada aysan fiicnayn, gymkaaga iyo dietkaaga wax badan ma soo kordhi doono, because jirkaagana siina fiican ma haysto. the main issue waxa waaye hurdadeedu waa 4 saac ilaa 6 saac inta u dhaxayso. so sida ugu macquulsan waxaa la rabaa inay 6 saac ka bilaabato ilaa 8 saac, macnaha sida oo caafimaadka fiican uu ku jiro waa. marka anigu weligeyga ma ahayn dadka 6 saac ama 8 saac hurdo, to be honest. hurdadeeda iska 4 saac ilaa 6 saac u dhaxaysa, sometimes 5 hours. so waxaan rabaa marka inconsistency ka dhigo hadafkayga in 6 hours aan meesha ugu yartaa aan gaarsiiyo 6 hours. sidoo kale issuegaas arrinkaas hurdadan waxay ka imaada xilliga gymka
socodka ayaa iskhilaafaya because socodka waqti badan iga soo qaadanaya because 10k steps at least waxaa u baahan 1 to 1.5 hour. So isku geey gymkii marka wuxuu iga qaadanayay 3 saac ilaa 3 saac bar oo socodka iyo gymka marka la isku daro ah. Inta aan transportation ka sameeyay all that, so sometimes 4 hours inay iga qaataa laga yaabaa. Inta badan marka aniga gymka habeenaa sameeyay taas waxay sababtay marka in hurdadeeda ay yaraato because inaan soo kaco waa mar walba hadaa soo kacana inaan kulaabto inta badan ma jecel kulaabashadaas ka caraa walow aan kulaabto inta badan laakiin to be honest markaa kulaawatid waa shit maalin ugu xun tahay waa noloshaada ama jadwalkaaga uu isbedeli doonaa marka aad hurdo kulaabashadaada ay badato. Marka aad inta badan isaga ilaaliya in hurdada aad kulaabto mar hadaa soo kaco soo kacay waa. Marka improvementiga aan meeshaas ka sameynaa waxay tahay in gymka aan geeyo subaxii hore, which means hadda inta badan gymka xaafadan ama magaalada aad joogo waxaa la furaa 3 saac ama 9 wixii ka dambeeyo, which is xilli almost shaqadii iyo wixii isku diyaarisa waa xilligaas gym aadi kartid almost marka waqtigaaga iyo arrimahaas shaqada moodkeeda inay kaa qaldamaan diidaa. Marka hadda waxaa helay gym la furaayo xilligii subax 7 oo 1 saac subaxnimo. marka gymkaas wuxuu ii fududeyn doonaa in 2 saac hore aan waqti ku soo qaato dhanka magaalada gymka si shaqadeedana marka 9 la gaaro ugu yaraan aan u bilaabo karo ama 10 inaan soo shaqo galo kadibna ilaa habeenkii aan shaqadeeda si toos ah u sii wato. taas ayaa issue ugu weyn ah oo ay haysto insha Allah improvementigaas ayaan ugu talgalay inaan sameeyo ayadana. sidoo kale issue kale waxaa jira schedule aydan tan waa soo hoos galaysaa soo shaqadii waxaa isku dhex darsamay iyo gymkii waqtigiisii ciriiri badanaa meesha ka soo baxay. soo ciriirigaas marka waxaa keenayo hurdadaas oo meesha ka maqan isoo kale schedule kan oo meeshan ciriiri ka imaado aydan taas in xal fiican aydan ka haya oo aan idin sheegay inaan inta u raro waxaa aaminsanahay in wax badan ay meeshaas ka soo bixi doonaan. yaraydateen maxaa ku feel garooway cuntada xaggeeda. soo cuntada xaggeeda waxaan sameeyay 2 habeen waxaan cunay meeshan drum lahaa inta badan wadanka Turkiga jooga aniga Turkiga waxay jecel yihiin baal oo drum la dhaho ama shawarmadii baasha wadanka ku naqaanay ay aad u isticmaalaan meesha hada maqaayadahooda number 1 shawarmadaas ka ama drum iyo waxbay dhahaan magacyo badan oo ay leedahay. 2 habeen kamid ah waxaan ku casheeyay baashaas cashana ma ahayn xilli hore cunay abaaraha 6ka meelaha 7 adis xilli hore ahayd laakiin sida qorshaha u ah waxay bur ah inaa ka fogaado oo cajiin ama wax bur keelayo. marka laakiin ayada naftirkeeda protein fiican ay leedahay markaan baaritaanka sameeyay waa normal ali dhahay as long as si moderate ku cunaysid. soo marka taas xoor i fududeysay laakiin macmacaanka macmacaanka ogtiin aad macnaa inaa ka haro waqti badan ay qaadanaysaa completely waa ka haray 10 habeen hal habeen kamid ah waxaan cunay hal buskud oo magaciisii oo sugar leh hal habeen aan cunay which is waa ka faqsay macnaa ilaa inta aad u soo daalay waxaan rabo midaan energy ka helo soo buskudkaas aan qaatay. soo labadaas aan failure-kaygu ahaa still waa failure waxaan rabay in 0 ka dhigo laakiin mar walba waqtiin iska anyways. so intaas waxay ahayd waxyaalihii ii hagaagay iyo waxyaalihii aan ku guul dareystay oo aan hagaajin waayo. aan u imaano marka ugu dambeyntii maxaa next ah. so insha Allah waxaa next ah in improvementyadaas hadda aan ka soo hadlay aan sameeyo sidoo kale adinkana aad ku dhiirigeliyo in wali waqti aad haysato haddii maskaxdan waxa aad u sheegtid ay qaadanaysaa maskaxdan intii iyo aad adiga maamulayso waa inta aad guushaado u sii socoto waa inta ayada ay ku maamulaysan waa inta adiga aad raacaysid waaye maxaa ku dhahaa habadaada iyo waxyaalaha raacaysa. ma qof walba idinka kamid ah waxaan ku dhiirigelinayaa insha Allah inaa waqtigiina ka faa'iidaystaan in 3 bil sanadka ka dhiman aad ku dadaashaan in bal aad dib u soo laabataan aadna ka faa'iidaysataan challenge-ga hadda socdo because marka inuu soo marina laga yaabaa challenge noocan oo kala wali waa laga yaabaa in marar badan aan sameeyno laakiin inta adiga aad jaanis haysato waqtigan ku soo maray inuu ku soo marina laga yaabo time noocan oo kala oo ciriiri badan xilli aad tahay oo ku soo maro. hadda marka inta aad jaanis ka haysato resources ka haysatana ka badan inta arkada dadka waxa problemada haysta waxa kamid ah ani isbuuc danba bilaaba aniga bish danba bilaaba
aan markay saas noqoto saan noqoto aan bilaabaa qof walba saas u dhahoyaa so iska waxa aaminsanahay wax hadda aa haysato resourceska hadda ku mutaax ama ku banaan oo ay heli karto ku shaqegal kasoo qaad jiimka hadday tahay jiim hadday awoodin ina aadid socod free waa yaa lacag ma kuu socdo may socodkaas aad suuxii soo kac adiga dhowr kilomitir ama intaas soco wax oo macnaha lacag ma kaa rabo haye waxbarashada imaaday internet meelaha oo internetyada leeyahay tag soolaan jaamacadaha internetkooda ama meelaha ka isticmaali karto internetka oo macquulka ah isticmaal mushkila ma lahan maxaa irshaad ka dhigi kartaa su'aalo waqti mahay waqtigaaga dib ugu laawo jadwalkaaga dib ugu laawo mar walba waqtigaa jiro mobilkaaga meeqaa ku bixisaa jadwalkiisa sidoo kale waxyaalaha ilaa waxaa ka mid ahaa mobilka asina waqti badan aan soo jaray awal wuxuu ahaa waqtigayga mobilka 5 to 6 hours to be honest oo aan mobil ku bixiyay so nooc walba ahaado had 2 hours aan maro ayadana so arrinkaas waa ilaabay haddaan kusii dhammaystiraa so mobilkaaga waqtiga aad ku bixinaysid qiimeey waqti badan meesha kaaga soo bixi doono aad ku analyze gareey kartid timekaaga wax markaas aad samaynaysid marka arrinkaas intaasaan aan kusoo gabagabay doonaa videogeena insha allah waxaan soo imaan doonaa next video oo aan update idinka sii doono insha allah sida markaas noqon doona qof walba waxaan rajaynayaa guul inuu insha allah ka faa'iidaysto waqtigiisa iyo sida markaas wax u samaynayo waa MC idin leh. Assalaamu calaykum.